الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الله ينبارك يا مال البجوكتان، الله ينحفظه شرط إيه الشروط إيه حزتك والله إنك غفتو وحانج على ذي ما أنت هدو الله قادر كإدمه إن هلكا نكوسو قد بيو عجل مهم جدا kaas oo ka hadlayo geedka loo yaqaano cabcabka. xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ma anzala allahu daa'an illa anzala dawaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ma soo dejinin xanuun ilaa xanuunkaas waxaa lala soo dejiyey daawo. waxaa waayo عارف من عرف وجهل من جهل. قفكي قرن أو قرن قفكي كجاهل نقناينا وكجاهل نقنايا. جيت كعبعب كلا وحياله داود وياهي أما وحياله وداويو وحياله هذه فربضا وحمات هل كان كو يلا بقى انقصوكو بكرنا معه. geedka cabcabka la dhaho wuxuu u fiican yahay walwalka, wuxuu u fiican yahay cabsida joogtada, wuxuu u fiican yahay geedka cabcabka la dhaho qalaqa iyo walwalka iyo isla hadalka waxyaalahaas oo dhan ayuu u fiican yahay. cabcabka waxaa weeye geed aad iyo aad u wanaagsan wey. ilmaha aanan hadlaynin ama ilmaha ku dhashay sida qaabka waxaad soobinaysaan wax walba adduunku waa sabar wey, waa in loo sabro. cabcabka saliidiisa zaytul cabcab ayaad u marinaysaa cunuga, furna waad ka siinaysaa muddo 7 bilood ama 4 bilood oo yaraan ayaad ku wadaysaa. kadibna biidna albaari cunugaas wuu shifoobaya. dadka hurdada iska waayay waayeelka asagana waxaa loo siinayaa boodharkiisa ayaa loo qasayaa, biyo ayaa lagu siinayaa, saliidisana waa la marinayaa. waa muhiim jiddan. waxyaalaha kale oo mataqaanay geedkaas uu u fiican yahay waxaa ka mid ah nimanka waxaa la dhaho prostatada oo kale oo ragga ku dhaco, oo ragga markay weynaadaan ku dhaco ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay. xagga awoodda oo mataqaanay reernimadana kor ayay u qaadaysaa. marka ragga inay aad u isticmaalaan ayaa fiican. wuxuu aad ugu fiican yahay oo mataqaan loo gaarin xanuunada isha, jinniga iyo sixirka looma gaaro, kulligood isku soo duduub. wuxuu u fiican yahay dumarka, xagga caadada ayuu u fiican yahay. wuxuu u fiican yahay cabcabka waxaa loo yaqaano dhabar xanuunka joogtada oo dumarka waxaa lagu daaweeyaa oo daawo rasmi u yahay oo la dhaho daawada kaliya uu yahay oo waxa dumarka aad ugu dhaco la cirqu nisaa, lagu xanuunka jilbaha ama mataqaanaaye joontiyaasha iyo meel walba oo laabanto oo qofkii iska xanuunto aad ayuu ugu fiican yahay. فوائد kale oo loo gaarin waxaa weeyo inuu yahay geedka protein, inuu qofkii mataqaanay jirkiisa soo dhisayo. saliidiisa aan marsanayso dadka hurdo la'aanta ama maskaxda ka wareersan ama waswaaska ku dhacay, saliidiisa ay marsanayaan, ilaajka iyo ruqyadana way isku wadayaan. kadibna waxaa soo baxayo tajribo aan caadi ahayn. waxaa aad u wanaagsan intii aad cabcabka wado
inaad isticmaasho biyaha zamzamka ah iyo timirta cajwada. qunuud iyo ilaahay ka baq iyo cabsi badan aad ku darto. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay fadcuunii astajib lakum, ibaryaa ninki ajiibe. lanna caafimaadka wax walbo waxay ahaatay ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisay ku jirtaa. wax walba ilaahay gacantiisay ku jiraan. waxaa loo baahan yahay marka in aad isku daydo inta aad wado geedkan cabcabka la dhaho saliidiisa iyo budadiisa intaad isticmaalaysaba in aad istikfaarta ku dadaasho, qur-aanka aad isku akhriso. xanuunada uu daawada ka yahay wax meeshaan lagu soo koobi karaa maaha. lianna ilaahay subxaanahu watacaala adduunkan ayuuna keenay, laakiin waxaa la soo raaciyey intaasoo geeda isku daaweyn. waxyaalaha dadkay ku dhimanayaan oo kiimikada ah, madaxa xanuunayo, geedkaas waa xanuun baabi'iyo, waa benkiila. dadka madax xanuunka uu dilay, jir xanuunka uu dilay waa benkiila dhab awey. dadka waayeelka oo mataqaanaa cirbadaha xanuun baabiyaha kiimikada lagu seexinayo, waxaa fiican in geedkaas mataqaanaa loo hagaajiyo oo mataqaanaa budadiisana biyo loogu daro. xataa qofka waa lagu qabeyn karaa, lagu qabeeyo qofka isla markii wuxuu galayaa jawi deganaan uu dareemaya. waxaa u fiican 3 ruux uu isticmaalo: khabiiska iyo mataqaanaa cabitaanka iyo marsiga oo saliid ah. wax weyn ayuu iska dareemayaa ruuxa. fawaa'ida weyn oo laga helay geedka waxaa waaye waa benkiila, wax xanuun baabi'iyo. ilaahay baa xanuun baabi'iyo. xanuunkaas ayuu ilaahay idankiisa, wax walba idanka allay ku dhacaan. ilaahay ruuxa ugu talagalo ayaa xanuun ka biskoona. ilaahay ruuxa ugu talagalo ayaa caafimaadaya. marka idanka ilaahay idankiisa wax xanuun baabi'iyo. wax walba ilaahay idankiisa ku dar. ana ilaahay subxaanahu watacaala asaga qaadir, wax walba asaga awooda. ilaahay waa qadiir, waa awoode. geedkaas waxyaalaha kale oo fawaa'idiisa oo mataqaanaa aan la soo koobi karin, fawaa'idiisa aad ay u fara badanta. laakiin fawaa'idiisa waxaa ka mid ah in lagu daaweeyo xanuunada ku dhaco maskaxda oo dadka dhagaha la dilaacaan, oo mataqaanaa waxyaalahaasa lagu daaweeyaa. ruuxa waa la tumayaa, budadiisa ayaa madaxa loo saari, saliidiisana waa loo marin, madaxa ayaa loogu xiri. ruuxaas muddo marka lagu wado waxaa weye dilaacaas iyo balaayadaasba ilaahay uu ka wadayaa idinka ilaahay. waxaa la rabaa in aad tijaabiso ood wado ilaa aad ka miro dhaliso. laakiin haddaad dhahdo ka waran maanta aan isticmaalay, berina waan caafimaadka ilaahay baa haya. geedkan ha aaminin inuu asaga caafimaad yahay. ilaahay baa kugu caafin, waa geed daawo ah. laakiin ilaahay aamin. number 1 waxaan ku iri ilaahay isku xir, zamzamka isticmaal, cajwada isticmaal, qiblada u jooso, qur-aanka isku akhri. ilaahay subxaanahu watacaala si dhab u tala saaro. wa aniibuu ilaa rabbikum, ilaahay subxaanahu watacaala inta usoo laabateed tasliim suubiyo ilaahay isku dhib. laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inaa kunaa min alظaalimiin. ku celi laa ilaaha illaa anta subxaanaka inaa kunaa min alظaalimiin. laa ilaaha illaa anta tasliim suubi ilaahay isku dhib. soo laabo. markaas dhiibto ilaahay subxaanahu watacaala toobadiisa waa furan tahay. ilaahay subxaanahu watacaala waa arxamu raaximiin. hooyada oo ku jecel ilaahay uu kaasii jecel yahay. hooyadaa kuu naxariis badan ilaahay waa kaaga naxariis badan. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay baa mahad iskale. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu.
الدال على الخير كفاعله سي ديستو سينا شرقري وحاليا قف ولا الكاين ولا أنفعه. بارك الله فيكم.